السلام عليكم. maalmahan soo ma gelin maanta, laakiin waxaan u soo galay arrin lama filaan igu noqotay runtii oo dad badan ay u qaadan waayeen runtii oo fajiciso ku noqotay. ma aha wax ku saabsan Soomaaliya maanta, waa arrin ku saabsan dalka Maraykanka iyo doorashooyinkoodii. waxaa fajiciso Soomaalida ku noqotay Ilhaan Cumar oo Soomaalidu ay wax badan u codaysay. labadii mar ay guulaysataba Soomaalidu aad ay ugu codaysay oo loo kala harin. inay maantay arrin filan waa ah oo loo qaadan karin, oo anigu hadda saan is leeyahay arrin qabiil u eg macnaha inay samaysay. wax walba horta waa loogu dulqaatay. waxa waaye wiil muslina oo Soomaaliya iyadoo qabta ay ka tagtay, oo weliba aad u soo caawiyey wiilku, oo xataa kaambaynadeedii hore iyo ololaheedii doorasho oo ninkii meel walba ka hadlaya uu ahaa. meel walba maaragtay ay ka hadlayso ninkii taageerada la daba taagnaa inay ka doorato markay danteedii gaartay oo ay ku biirtay aqalka koongareeska, inay ka tagto oo nin yahuuda sida lagu sheegayay ay u tagto. Soomaali badan xoogaa waa ka xanaaqday, haddana waa maaragtay waa la iska cafiyey oo codaynta loo codaynayay maaragtay habis kale maaha. codaynta loo codaynayay waxba iskama bedelin, iyadoo ay salaaxanaysa waa aragnay. wax iska bedelay ma jirto, inkastoo arrin xun ay tahay in qof muslina oo si uu maaragtay u qanciyo qof gaala si u qanciyo eeya salaaxanaya. runtii kollay wax kale kama haysaan isleeyahay anugu. waxaasoo dhan waa loogu soo dulqaatay, laakiin maanta arrin waxay samaysay Soomaalidu dhan ka fajicisay runtii. wiil Soomaaliya oo tartamaya oo la tartamaya degmada maaragtay annagu degannaho Soomaalidu ay u badan tahay, naag Isbaanish, inay naagtii Isbaanishka ahayd ay taageerto, waxaase ay soo saarto waxay leedahay sample ballot. waaye macnaha ballot geedkan lagu codeeyo, warqadan lagu codeeyo oo sample ah waaye, ee sample intaas u codeeya ay leedahay. wiilkiina ay ka reebto oo naagtii Isbaanishka ahaa ay dhinaceeda xigsato. arrin waxay noqotay Soomaalidu fajiciso ku noqotay. wiilku waa kana wiilka waa kaasaa sawirkiisa. waa wiil Soomaaliya u tartamaya aqalka sanadka ee Minnesota. naagta ay isku soo masawirtay oo u codaynaysa loo coday leedahana waa taas ma jeedin. naagtaas u koraysa waa Isbaanishka, naagta u koraysa waa naagtaas ma arkaysiin. ay tiri ha loo coday, ay isku soo iyadii iyo intii macnaha endorsement ay u samaysay macnaha. wiilkaasna waa ka tagtay. dad badanaa horta ka xanaaq runtii. waxa waaye
soomaalidii intii badneed oo u coday jirtay arrintaas markay samaysay codkoodii waxay siiyeen ninkii ka soo horjeeda ayadu waa tartamaysa laftigeeda nin madow oo ka soo horjeeda ay siiyeen oo soomaalidaas aniguba aan ka mid ahay markaan arkay waxaan idhi haddee awalba soomaalinima loogu codaynayo mogta hadday soomaalinimadii ka baxday oo ay arrimo kale maaragtay ii sheeg ay meeshii keentay iyo qabiil saan isleeyahay wiilku waa wiil habar gidira marka anigu waxaan isleeyahay arrintaas waayo macnaha waxay u samaysay arrinta iyaduna waa naag daarooda ninkii wuxuu yidhi saan daaro dib iiga dhig qufacee dhuusee qori jibshe arrintaasu waxay ku dhacday waa qiso dhacday waaye wiil yar oo abti loo yahay ree abtigiis iyo waxaa dirinayay iyo cidduu ka dhasho asigu daaradu ah ree abtigii marka wiilkii wax xila iskama saarinoo waxay maaragtay is yidhaahdeen waa wiilkiinnii oo isaga macnaha wax colaada uma aysan maaragta qaadin asaguna lugooyo iyo dadkii raabtigiis ahaa oo soo koriyey weliba xataa inuu lugooyo uu isku dayay macnaha wuxuu ballan la galay uu la galay macnaha ii sheeg heshiis oo ay yidhaahdeen war adaa meesha joogee niyahow noo soo sheeg nimankaa markay jiifaan saan inta u nimaadno u layno wuxuu yidhi habeenkii markii ay tahay waa meeshu carradu waa degan tahay macnaha oo jabaqda yartaa waa la maqlaa wuxuu yidhi 3 baaqaan idiin samaynaa markay jiiftaan wuxuu yidhi ama waa dhuusa ama qoryan jebina oo waddan qori ka jebina qoriga marka qacdiisas waa la maqlaa ama waa qufaca ciddi mar alla markay seexdeen uu sidii yaal habeennimaa lagu soo guday waxna waa laga raayay waxna waa ka baxsadeen dadkii baxsaday waa marka hadalkan waxaa yidhi saan daaro dib iiga dhig quface dhuuse qori jabshe macnaha wax aaminaada oy leeyihiin cindaasu male calaa kulli xaal odagii la tartamayey ayada horta faraci dile maaragtay muxuu aha ay markaan ku baxsatay 2 buundo bis 2% ay ku fakatay odaguna 48% keena ayadana 50% ay keentay waagii horena waxay markay ugu yar tahay ay ku guulaysan jirtay 60% sida hadda dad badan oo dimuqraadi ay ugu guulaysteen macnaha dadka guulaysto dhan hoosaa idinkugu soo qori doonaa macnaha hoostaan maaragta aad ka arki doontiin sidii dadka loo kala guulaystay kulligood kan ugu yar 69 hataa naagta gabadha wiilka la tartamaysay 69 ay keentay ayadu isbaanishkeedii iyo soomaalida isku darsatay qayb soomaalida ka mid a asagiina waa yarkii waa maaragtay kuma guulaysanin macnaha ii sheeg jagadii uu rabay marka ayadu faraci dile ay ku baxsatay faraci dile waxa waaye 50% weli ma keenin xataa meel walba maraykanka oo dhan hadda waa laga hadalhayaa waxa ku dhacay taasna waxa keena waxa waaye macnaha dadkii soomaalinimada ugu codaynayay ay keentay inay kala saarto oo macnaha haddayba wiil soomaaliya wiilku waa wiil habar gidira wiil soomaaliya ay maaragtay intaysan taageerin ay naag isbaanish taageertay soomaalidii haaf ninkiyaa loo codayno sababta ay macnaha wax faraci dil ugu sigato weliba ninka inuu guulaystaan rabno wallahi on tusno waxay tahay sababtoo ah marka ugu horreysa horta wax ay soomaalida u qabatay labadii xilliyo joogtay koongareeska ma jirto
waxaan dhib ahayn nooma soo jiidin runtii sababto ah waxa waaye republicanka horta waa nagu dirtay kow oo republicanka iyo Donald Trump hadday hadda soo noqdaan Soomaaliya waxba kaari mayso wax cararay wax la dilay noqonaya runtii ciilka ay u qabaan kaliya Minnesota weliba Soomaalida degan dhowr jeer oo Trump ka hadlay uu yiri Minnesota Soomaalida degan waa in laga saaraa waddanka u dhahno waxay rabaan ahaadeen desitiisan yihiin waxay rabaan ahaadeen marka dhibkaas waa noo keentay oo tukacan baarlay naga dhigtay runtii oo maaragtay ninkii la caytamay oo ayada laftigeeda dhowr jeer maaragtay loo soo diray in la dilayo macnaha email ah death threat in loo soo diray marka waxa waaye dhibkaasi horta anaga nagu haysa awal dhibkii marka wuxuu yiri awalba ano weesha ano awalba ooynaya aweel ugu joogsatay awalba ano ooynaya ninkii aweel ugu joogsatay waxa waaye awalba anagu intaas ugu dul qaadanayni hadda waxay keentay inay Soomaalidii ay qabiilku kala saarto mid Soomaaliya endorse garaysay aan isleeyahay kulley oo maaragtay sheeg aan isleeyahay daarood waay marka waxa waaye arrintaasaan maanta maaragtay inaan ka hadlaan rabi waa maaragtay arrin iga fajicisay noqotay oo aanan maaragtay aad maaragtay aan ula yaabay runtii sababtoo waxa waaye qofka intaas aan soo wadnay oo haddaad Soomaalidu na sii coday lahayn meelna ma tagteen wallahi haddii Soomaalidu dhan coday lahayn meelna ma tagteen marka arrinta ay timaado in gaalo la iska dhiciyo oo la wada duubnaa laakiin maantay Soomaalida idaa kala qaybisay runtii aaminsanay marka hadda kolley guulaysatay meeshii waa tagtay laakiin waxaan u malaynaa Donald Trump markuu yimaado si uga faka doonto Donald Trump waxaan aqsii runtii yeah marka waxa waaye arrintaas arrin la yaab leh noqotay oo Minnesota ka dhacday Minneapolis South Side Minneapolis oo meesha Soomaalida aad ugu badan tahay taa runtii marka aanti waxa i soo geliyay intaas ay ahayd macnaha inaan ka hadlo oo maaragtay aan dadka maaragtay u sheego oo u iftiimiyo qofkaas inaysan qof Soomaalinimo marka la joogo Mareykanka rabta inaysan ahayn oo Soomaalida kala soociso أنا هذا ما بدي كرب وحكلا وهذا ويل كاس أي كساعدي أي ما عرفتي إيش أي وتاجر ويس أنا ما قرن كربتي مساسين هل كاس أنا أوريجي كله مركا هل كاس أنا مرت كسور جبينا يا إن هذا كاشي فيديو أو وحكي فايدي ستي لايك شير سبسكرايب إن مركا سيدا سينا